social media sida mdobiyo facebookgeena iyo sidoo kale barta kale ee dobiyo media. Waxaan ku soo gudbinaa dhacdooyinka dalkaada haddii ahaa lahay siyaasadda, dhaqaalaha, isboortiska, fanka iyo arrimaha diinta. Intaba waxaa ku kulmisa dobiyo media iyo mdobiyo. fadlan subscribe noo saar, follow-na soo dheh haddii ay tahay booqashadaada koowaad si aan mar waliba halkaan ku xirnaano. mar waliba ku xirnaaw mdobiyo iyo dobiyo media. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخيارتنا داونيساي إذا الأهانتي ممال والبقى دافها الدنيا كجسونتين إيه جور والبقى حل والبقى يدينته وأنا وناكسن أيام كلها نجوا عاموس محمد عليك على سؤال لدو بيميري برتنا يوتيوب كيسيدو كلا مدوبي برت فيسبوك كون سوبايو حد بدل كذا هوي وحبها كجر قضبة يدين وذنا وحكم ده. لكن there are limits. وحكست أوجون ستاجا برمود كرينا يوكسور جدا. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan maanta jaaliyadda ku nool dalkaasi Mareykanka la qaatay ka hadlay arrinta gool isku taagga Somaliland iyo arrimo fara badan. warbixin aanu ka diyaarin kulankaasi socdaalka madaxweynaha iyo waxyaabaha ka hadla maanta waa idiin soo gudbin doonaa. isla markaasina halkan anigoo Mustafa Maxamed Cali kaaga soo jeedin doona dowladda Soomaaliya ciidankii ugu badnaay ee galmudug ee maanta diyaarad ku geysay qayb ka mid ah si dagaalka loogu saaro kooxaha argagixisada al-shabaab. dowladda iyo sidoo kale maamulka Hirshabelle isku mid kaga hadlay jab loo geystay kooxda argagixisada ee Hiiraan dagaal lagu galay. warbixintaasina qayb ayay ka noqon doontaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Duqa Muqdisho maanta kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir isla markaa amarkii ugu horeeyay soo saaray. muxuu yahay amarkaasi waa idiin soo baahin doonaa ee u diyaar garooba ayagoo dhameystiran. anigoo Mustafa Maxamed Cali ku soo jeediyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta magaalada New York kula kulamay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi qaar ka mid ah, asigoona kala hadlay arrimo fara badan isla markaasina ay u faahfaahinayay socdaalkiisa oo ku gaaray halkaasi iyo qorshaha dowladdiisa iyo waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha ay higsanayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya kulankii maanta oo jaaliyadda Soomaaliyeed la qaatay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbalaynin ayna ka go'neen in Soomaaliya gooni loo kala go'o, taasi oo ula jeedo isku taagga gobollada waqooyi ee Somaliland ee madax banaanida rabo. wuxuuna sheegay in inta xal laga gaarayo wax waliba ay u baahan yihiin ee dhanka Soomaaliya kaga xiran inay u fududeyn haddii ahaa lahayd mashaariic dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale ee la xiriirto ee hanaanka Soomaalinimo ee loo soo mari lahaa, balse marnaba inaysan aqbalaynin in lacaga ama si kale ay Soomaali ku kala go'do. marka walaalayaal reer Somaliland annaga waxaa naga go'naa inaanan hadda aanan diplomatic masalka dowladda Soomaaliya ay leedahay legitimate-ka inaanan ku barashan karin. laakiin there are limits. wax kasta oo gooni isu taagga promote karaynayo waa kasoo horjeedna. wixii ka soo hara development hadday tahay, humanitarian hadday tahay, trade iyo business iyo investment hadday tahay, all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa. documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa usii jira, haddana waa siinayna. laakiin any agenda oo midnimadeena dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystirayo whatever uu yahay, ama dhaqaalaha lagu soo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diidaynaa. mana qarinayno inaan diidanahay. walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isu taagga ma ogolin. waxaan rabnaa walaalaha inaan fursad siino oo termiska aan ku midoobayna xataa ayaga ha ka timaado. the way they see fit inaan dib u midoowno ha ka timaado ayaga. waa kala doodaynaa here and there, waana la qaadanaya, laakiin annaga xataa hadda inaan ku khasabno saan ku midoobayna anaa there are two. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo hadalkiisa sii wato ayaa wuxuu sheegay in saraakiil iyo mas'uuliyiin sarsare ee xukuumadda Washington uu la kulmay isla markaasina kala hadlay arrinta la xiriirto sidii loo ciribti lahaa dalka loogu xuray lahaa kooxda argagixisada ee al-shabaab. State Department-ga maash tagnay, Treasury-ga ayaa sidoo kale la kulanay, dhammaan madaxdii mas'uuliyiinta hay'adahaas madaxda ka aan aragnay.
dhammaanna it was very very positive. dowladda Mareykanka ee xilligan joogtahay way ka go'an tahay Soomaaliya inay kaalmayso. dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ciidamadii ugu badneed abid ee isla markaasina dowladda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyo geesay maamulka Galmudug deegaano ka tirsan gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb kadib diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho. ciidamadaasi ayaa waxaa horkacayay taliyaha deegaanka ee Dar es Salaam iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee degmada Yaaqshiid isla markaasina maanta ay gaareen magaalada Dhuusamareeb. wararku aanu helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamadaasi saraakiisha ay yihiin kuwa qayb ka naqanaya xoreynta maamulka Galmudug deegaanada ee kooxda argagixisada ee in muddo ay ku haysteen isla markaasina dagaalka iminka kacdoonka ah ee dowlad goboleed iyo sidoo kale mid heer federaal iyo dadka shacabka is abaabulay ee deegaano dhowr ah looga bilaabay. waxaana la sheegayaa ciidamada maanta gaaray Dhuusamareeb inay yihiin kuwa loogu talagalay in ay ka saaraan deegaano sida Ceelbuur iyo deegaano hoos tago isla markaasina ay Dhuusamareeb ka sii bixi lahaayeen caawa la sheegay inay dhaqaaqyada ay ka socoto. waxaana deegaanka iyada ay qorsheeyeen ee ka mid ah Gelensoor iyo sidoo kalena aan yiraahdo Galhareer iyo sidoo kale deegaano ay hoos tago degmada Guraac degmada Ceelbuur oo in muddo kooxda Al-Shabaab ay ku sugnaayeen. dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa si isku mid ah waxay kaga hadleen arrinta la xiriirta jabka 48 saac ee la soo dhaafay ee kooxda argagixisada ee nabadeedka Al-Shabaab loogu geystay maamulka Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan. waxaana la sheegay in horjoogayaal iyo sidoo kale maleeshiyaad fara badan oo ku dhow 40 milyan loogu dilay weeraro kala duwan ee ka dhacay. dowladda Soomaaliya qoraal ay ka soo saartay ayaa waxay ku sheegtay ciidamada gaarka u tababaran danab ee dagaalkaasina qayb ka ah Hiiraan ku sugan inay dileen ku dhawaad 35 halka kale ee maamulka Hirshabeellena ay sheegeen ayagana dhankaasi inay xaqiijinayaan. ugu dambeyntiina dhanka kale ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale Xuseen Madaale ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta isboortiga ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo kulankaasi goobjoog ka ahayeen gudoomiye ku-xigeenada sida arrimaha bulshada Basmo Amir Jakeeti iyo sidoo kalena gudoomiyaha kale ee ururka haweenka qaranka Jawaahir Barqab. mas'uuliyiinta iyo sidoo kale dhalinyarada ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay xaaladaha kala duwan ee gudoomiyaasha ee degmooyinka ee dhanka iyo waliba arrimaha bulshada haweenka iyo sidoo kalena kan kale ee isboortiga. waxaana uu dambeyntii uu soo saaray amarkiisii ugu horeeya ee ku aadanaa in isla markaasina faray madaxdii maanta kulankaasi la qaadatay in ay ahaadaan kuwa ka shaqeeyo dhanka iyo amniga sidoo kale nadaafadda iyo sidoo kale caafimaadka iyo arrimaha bulshada si isbedel buuxo dhanka howlaha ee gobolka Banaadir oo dhowaan loo soo magacaabay ee xafiiska lagu wareejiyay horyaalay loo dardargeliyo. kulankani oo maanta qaatay iyo sidoo kale amarka uu soo saaray ayaa waxay noqonaysaa madaalkii ugu horeeyay oo tan iyo markuu si rasmi ah xafiiska uu la wareegay. waa tahay akhyaartu waan jecelnahay intaasi aad daawateen qodobadiina ay tan iyo mar kale inta kulmi doon sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.